السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساينسكو وفراه هرمارك ee nolosha casrigan. Saynisku waa hab fikrad iyo maskax toojin, waana hanaan lagu xaliyo dhibaatooyinka ka dhasha saameynta aadanaha uu saameeyo deegaankeena. Se waxa uu leeyahay saynisku waji labaad oo aynan arag badiba dadka caadiga ah. Hadalkaygu kama dhigna inuu xun yahay sayniska. Se waxa jira aragtiyo saynis ahaan saxan oo ay isticmaaleen dadyo xun taasoo ka dhigaysa saynisku mid qayb ka ah xumaantaas. haddaba aragtida aynu ka hadlayno waxaa loo yaqaanaa eugenics. Eugenics runtii waa cutub madow oo taariikhda sayniska ka mid ah, weliba maanta si weyn ayaa loo cambaareeyaa. haddaba waa maxay eugenics? Eugenics waa aragti xooggan oo xiriir xoogganna la leh evolution theory-ga. waa aragti uu Hitler ku xalaaleystay dhiig fara badan, waana aragti adduunka oo dhan loo arki jiray mid caadi ah, loona yaqaanay master race, superiority race ama eugenics. Eugenics waa aragti loo arkayay markaasi in loogu talagalay in lagu wanaajiyo tayada hidawadaha aadanaha. tusaale ahaan, haddii la rabo wan caata ah ama organ naxiif ah in la cayiliyo, waxaa lagu sameeyaa dhufaanid oo xaniinyaha ayaa laga siibaa. sidaas si lamid aragtidani waxay leedahay dadka caatada ah la dhufaano amaba hala dilo si aynan u dhalin dad ka sii caateysan iyaga. haddaba si fiican si aan u fahanno cibaankan taariikh ahaan bal aan dib u noqono. dhalashadii Nabi Ciise ka hor ilaa qarnigii afraad, Aflaatoon ayaa ka mid ah dadkii aaminsanaa in la kordhiyo taranka shakhsiyaadka caafimaadka qaba iyo kuwa xoogga leh oo kaliya. hogaamiyayaal fara badan iyo ilbaxnimooyin ay ka mid yihiin Spartans iyo Romanska ayaan aragtidaasi si toos ah u qaatay, iyagoo weliba aragtidii ku daray kuwa caatada ahna waa in la dilaa oo dariishada laga saaraa. labadan ilbaxnimo ayaa ujeedkoodu ahaa aasaasidda bulsho ciidan oo xoog lehna dareen sareynimo iyo ku faanid boqortooyada. oo waxaa caadi ahayd in Spartanska dilaan carruurta caatada ah misana nafaqa darada ay hayso, iyagoo dhaafi jiray carruurta xooggan si ay bari ugu noqdaan ugaarsatada ugaarsan doonta cadawgooda. hase ahaatee dhacdooyinkani xilligaasi ma ahayn saynis iyo wax ku yimid dharaandharin ilaa laga soo gaaray qarnigii 19aad oo aqoonyahan lagu magacaabo Francis Galton, ilma adeerna la ahaa Darwin, ayaa hal mar hunqaacay lalabadan. Francis Galton wuxuu akhristay maqaalo fara badan oo uu qoray in adeerkiis Darwin, waxa uuna ku waashtay aragtida horumarka noolaha, gaar ahaan xulashada dabiiciga ah. xulashada dabiiciga ama waxa afka qalaad lagu dhaho natural selection waa habka ugu muhiimsan ee horumarka noolaha oo uu soo jeediyay Charles Darwin. waana hanaan ay nooluhu sifo ay iska dhaxleen ay sababi karto inuu noolahaasi bato ama uu yaraado waqti kadib. haddaba si aan iskula fahanno aragtida natural selection iyo waxa ay ka hadlayso, waxaynu soo qaadan doonaa laba tusaale. tusaalaha koowaad, kaba soo qaad in laba koox oo bakaylayaal ay ku nool yihiin meel doog ah. kooxda koowaad ee bakaylayaasha dhogortoodu waa kafay, halka kooxda labaad ee bakaylayaasha dhogortoodu ay tahay caddaan. durbadiiba haddii la gaaro xilligii jiilaalka oo cooskii uu dhammaado, deedna uu halkaasi baraf ka da'o, labadaasi kooxood kooxdee u dhow in la cuno oo la ugaarto, kooxdeena u dhow inay badbaado. dabcan in la ugaarsado waxaa u dhow kooxda kafayga ah, waayo ugaarsatada dhaqsi ayay ku arki karaan, halka bakaylayaasha cadcad ay u eg yihiin barafka, taasoo sababi karto inay badbaadaan, deedna ay dhalmadooda u badato. dhalmadooda inay badatana waxaa sabab u ah midabkooda. yacni halkaan u socdo waa bakaylayaasha cadcad inay bataan waxaa sabab u noqday midabkooda, oo midabkooda sidii kuwii hore haddii ay kafay ahaan lahaayeen waxay u badnaan lahayd ayagana in hawada lagu cuno ay dabar go'aan ama uu yaraado tarankooda. tusaale labaad, kaba soo qaad inay ku nool yihiin meel laba kooxood oo deerooyin ah iyo yey. labada kooxood ee deerooyinka ah koox ka mid ah waxa ay leeyihiin lugo xooggan oo waaweyn, halka kooxda kale ee deerada ah ay leeyihiin lugo caata ah misana naxiif ah. haddaba waqti kadib kooxdee ayaa dabargo'i karto, kooxdee ayaana badan karto. waxay u badan tahay inay badanayso kooxda deerooyinka oo lugaha waaweyn leh, maadaama ay ka ordi karaan kana baxsan karaan yeyda kolka loo fiirsho kooxda deerooyinka ee lugaha caatada leh. haddaba tusaalooyinkan waxay qayb ka yihiin hanaan cilmiyeedka loo yaqaano natural selection. sidaasi si la mid ah, Francis Galton waxa uu leeyahay haddii uuba noolahaasi si dabiici ah u dabargo'i doono, maxaa diidaya inaan inaga soo afjirno? yacni Francis Galton waxa uu leeyahay laba goraanba bakaylayaasha kafayga ah way baabi'i lahaayeen oo way dabargo'i lahaayeen, sidoo kaleete deerada lagu haya yar way dabargo'i lahaayeen. taasina dabargo'da waxay qaadan lahayd muddo gaarayso 5 sano, 10 sano ilaa 15 sano. haddaba annagoo xilligaasi jaanis aanan siinin, maxaa diidayo inaan soo dabargoyno innaga? sidaas la mid wuxuu aragtidiisa ku darayaa maxaa diidayo dadka caatada ah in la dhufaano si loo cayiliyo. si fikirkaasi qaldan ee qalafsan waxaa ka hor yimaaday Darwin, waxa uu ku tilmaamay fikirkaasi inuu yahay dabargoyn iyo weliba xagjirnimo. sidaad ka warqabtaan 1882 ayuu geeriyooday Darwin.
halka Francis Galton 1883 uu ka qoray kitaabkiisa uu bixiyay Eugenics yacni asalka wanaagsan. haddaba aragtidiisa waxa uu ku xoojiyay in dadka naafada ah dadka caqligooda uu hooseeyo iyo weliba dadka caata-caatada ah hawada laga saaro yacni waa in la dilaa maadaama ay dhibaato ku yihiin markaasi hidasidaha aadanaha. si fikirkani qalifsan xagjirnimada iyo takooridda aadanahana ku dhisan qarnigii 20aad waxa uu Mareykanka ka noqday sharci oo xitaa dawladda ayaa taageeraysay ururada u ololeeyo xagjirnimadan. kolkay ahayd taariikhda 1896 wuxuu Mareykanka saxiixay xeerar diidaya in la guursado dadka qabo suuxdinta ama dadka maskaxiyan xanuunsan in la guursado ama loo guuriyo. 1903 American Reproductive Institution macad la dhaho ayaaba loo xil saaray arrimaha guurka iyo qoyska. wuxuuna ururkani taargetgareysan jiray dadka qabo suuxdimaha iyo dadka yara xanuunsan maskaxiyan ahaan. 1928 waxaaba si toos ah loo takooray dadka caatada ah waxaana lagu tilmaamay inay yihiin soo galooti iyo dad laga tiro badan yahay. taa waxaa ka daran in 1909 ilaa 1979 inta u dhaxaysay la diiwaan geliyay in la dhufaanay dad ku dhow 200,000 oo qofood oo maskaxiyan u xanuunsan iyadoo loo tiigsaday sharciga badbaadinta carruurta mustaqbalka. xitaa taariikhyahanadu waxay sheegaan in canug yar in la dhufaano hooyadii la weydiisan jiray haddii ay diidana waa la dili jiray canug yar si aanan canugeeda loo dilin ayayna u ogolaan jirtay dhufaanida ama in canugeeda laga baxsho xaniinyaha. bal ila fiiri daawade waddanka u ololeeyo xuquuqul insaanka iyo xuriyadda aadanaha ayaa sidan u galayay dadkiisa xitaa 100 sano kama aysan soo wareegin dhacdadani. sidoo kale fikirkan xagjirnimada iyo takooridda ku dhisan 1920kii waxa uu noqday dhaqdhaqaaq caalami ah iyo ilbaxnimo cusub oo loo kala tartamo waxaana soo dhaweeyay fikradani guracan wadamada kale ah Jarmalka, Japan, Chinaha, Ingiriiska, Talyaaniga, Mexico, Sweden, Faransiiska, Denmark iyo weliba Canada. waxaase intaasi ka sii daran interkobyaqaanada dhaqaalayahanada culimada daraasaysa cilmi nafsiga iyo kuwa daraasayay cilmiga bulshada iyo weliba dhaqaatiirta caafimaadka dadweynaha ay ku taageereen Eugenics-ka cilmi baarisyo iyo maqaalo ay ku guubaabinayaan falkani sax ahaanshiisa iyo saynis ahaantiisa. sidoo kale 1933 fikirkan waxa uu gaaray dalka Jarmalka waxaana go'aan laga soo saaray in dadka qaba cudurrada la iska dhaxlo la dhufaano oo xaniinyaha laga siibo. kadib soo bixidii xeerkani 400,000 oo qofood ayaa la dhufaanay. deedna waxaa adkaatay shaqadii dhufaanida waxaana la sameeyay xarun dadka lagu torjargareeyo iyadoo dadka maskaxiyan jiran kuwa naafada ah iyo weliba kuwa cudurrada la iska dhaxlo qabo aan la kala reebin. deedna Hitler iyo kooxdiisa waxa ay beegsan jireen Yahuuda iyagoo ku tilmaamay inay yihiin dib u dhaca nolosha Jarmalka kuwii sababay waxaana lagu qiyaasaa inay dileen wax ka badan 6 milyan oo Yahuud ah. haddaba aragtida Eugenics-ka waxay noqotay aragti kolkii dambe la mamnuucay waxaana daaha lagu rogay in qaladku uusan ahayn sayniska ee qaladku yahay qalad fahanka aragtidaasi la qalad fahmay. haddaba daawade barnaamijkeena maanta halkan ayaan ku soo gabagabeynayna inta aan barnaamijkan oo kale ama ka qiimo badan ku wada kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad dadaalkuna waa muhiim.